maalin wanaagsan saaxiibadeeda sawirkan ayaa rabaa daqiiqada yar oo kooban inaan idin sharaxo waa sawirka ugu horeeyay ee la baahin doono nin ka tirsanaa kooxdii shabaab ee dhibaatada ku hayay bulshada Idris Maxamed Sheekh Maxamed Nuur ninkan aad u jeedaan in ka badan 15 sano baadigoob ayaa loogu jiray dawladda meel aysan ka raadinin soo qabashada ninkan ma jirto wuxuu ahaa ninkii ka horeeyay amiirka iyagu waxay u yaqaanaan kaba ku dukade wuxuu ahaa ninkii haystay in ka badan 10 sano shabeellada hoose oo dhan kaalin weyn ku lahaa dhibaateynta bulshada wuxuu ahaa ninka magaalada Muqdisho oo dhan ee nabad ka noqon weysay in ka badan 15 sano laakiin waayahan dambe waxaa loo wareejiyay gobolada dhexe ee Soomaaliya magacii marka Idris Maxamed Sheekh Maxamed Nuur wuxuu ahaa gacantii midig ee Axmed Diiriye in badan dawladda Soomaaliya waxay baadigoob ugu jirtay xogtiisa marka la helay isaga iyo rag kale oo isaga ka agdhowba wuxuu ahaa shabaabka magaalada Muqdisho dhibaateynta bulshada ku hayo oo dhan ninka ay hoos yimaadaan isaguna wuxuu joogay shabeellada hoose inta aan loo wareejinin gobolada dhexe ee Soomaaliya xogtiisa waxaa la helay si loo soo qabto ninkan eeriida uu joogo isticmaalka taleefanka noloshiisa waxaa la helay 29 July hadda waa July Agoosto maanta waa 29 July ayaa la ogaaday xogtiisa goobta uu joogo iyo sida loo qaban karo hay'adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa ku guuleysatay soo qabashada ninkan kadib markii lagu ogaaday meerar guur oo ka tirsan gobolada dhexe inuu ninkan joogo noloshiisana halka uu ka wato yahayna gacanta midig ee ninka ugu sareeyo shabaab maxaa lagu sameeyay markaa isma waalin xogtiisa marka la helay waa la sii dabagalay waa la sii daajiyay ilaa 3 maalmood dabadeedna Agoosto markay dhalatay 3 Agoosto goobta uu joogo iyadoo aan dagaal dhicin iyadoo aan dhiig daadanin iyadoo aan bulsho badan dhibaato la gaarsiinin waa laga dul tagay bacriminta IVF waxay lamaanaha u fududeynaysaa inay ubad helaan alla ayaa bixiye iyadoo la isticmaalayo qalab casri ah isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta Marwa Fertility Center Muqdisho Taleex wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo dabadeedna waa la soo qabtay hadda waxaa loo soo gudbiyay hay'adda sirdoonka xafiiskeeda ugu sareeya ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waan kugu celin doonaa magaciisa waa Idris Maxamed Sheekh Nuur shabaabka hadii ninkan laga qabtay iyagu markan waxay noqon doonaan kuwa sii jabo maadaama howlgalada hay'adda nabad sugidda ee kor u sii kacayso shakhsiyaadkii ugu sarsareeyayna nolosha lagu qabanayo Idris wuxuu aaminsanaa muddo badan maadaama shabaabku uu ku jiray inaana la arki doonin xogtiisana la qaban doonin lana ogaan doonin shakhsiyadda qofka uu yahay laakiin waaba ninkii ka horeeyay kaba ku dukade amiirkii ka horeeyay lagu bedelay taas waxay ku muujinaysaa awood uu ku lahaa gudaha shabaab laakiin hadda waa la soo afjaray hay'adda nabad sugidda ayaa gacanta ku hayso magaalada Muqdisho ayaa loo soo gudbiyay Muqdisho ayaa hadda la keenay noloshiisa xaalkiisa hadda wuxuu u bilaabanayaa ciqaabteeda iyo hadda iyo xabsi iyo soo taagitaanka maxkamad muuqaalkan waa mid kamid ah guulaha ay gaartay hay'adda nabad sugidda qaranka waana mid kamid ah shakhsiyaadkii ugu sareeyay lagu soo qabtay muuqaalka qabo la wadaag saaxiibadaada mahadsanideen